habeen kasta waxa dhici jirta ma taqaan walwalka ugu hay Cabdiraxmaan Cabdishakuur gurigiisa markii la soo weeraray ciidankay waxay ku jiraan ciidanka xasalinta ma fahamtay Allah kabtan hadda dhintay oo ciidankaas haystay ayaa wuxuu soo wacay 9 saac galabtii khamiisay wax xustaa wuxuu dhahay waxaan ka joogi lahayn nabad sugidda gobolka Banaadir maxaa jir adiga telefoon yaa ku siiyaan dhayrta telefoon ba intaad ka keentay sababtoo ah waxa ka mamnuuca sarkaalka ama askariga dugsigaas jooga xilliga shaqada ugu jirta telefoon isticmaal waa ku tookay qabna yaa ku si telefoonkaaga horta xirbal haye maxaa ka baqaysaa saas miha gawaar ilaahay la igu aadi gawaarada haysta maxay tahay waa intaas gaari lix gaari xirada gay qaar oo leedka daadi qaar lugaha ka bixi baabuur iyo hal baabuur aan ku socod kaliya qabaan intuu ku mashquulsan markuu soo waxu guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur alkale hadii yarkaasi maalintaas uu jawaabi lahaa ya oo ciidankaygan xasaliinta oo nabad sugidda laga xukumay ciidanka anaga ma xukumin anaga inaga tirsan yahay kaliya xukumay nabad sugidda laga xukumay oo xasaliinta xasan qeyran ku daray 200 ay ugu jirtay marka waxa la rabay ciidankaas inay weeraraan Cabdiraxmaan oo inay way ku jireen ilaahay naga badbaadiyay maalintaas ninka ku soo wacay waxa la siiyay amar ah inuu weeraro Cabdiraxmaan Cabdishakuur maya asigu waa la soo wacay in la howlgeliyo asna uu baqay sababta anaga nidaam baan leenahay mogta waxa way anaga dugsiga dad ajnabi ah jooga aniga waxaan ka baqi jiray ciidanka in loo isticmaalo arrimo siyaasadeed sababta waxa farmaajo markuu yimid nidaamkii aan ku joognay magaalada isbedelay sababta waxay xasan sheekh iyo dadkaasi waxay ahayd nidaam si dawladnimo loo dhaqmi jiray ciidanka siyaasad loo isticmaali jiray waan waxa way habeen 7 saac lagu soo wacay waxa lagu leeyahay 120 ciidan ay diyaar garay war ciidanka nidaam loo dalbaa jirto فوما جل صبح عيدك ما خبريا ما وضع صوت عنك وحن ديدن عيدك مركان توبره وحن اللي يقول هيستبا عيدك حيرد محا هو هيسا ور عيدن حيرا على هين عيدن مر نقون هاي واي وحدي ودا نيكي سركالka markuu ku soo wacay uu ku yiri howlgelina lay faray amar ay soo siiyay maya waxaad ku yiri waxaan ka waa shaki igu jiro oo dhahay ninkii maanta ugu soo noqonaayay yaa soo wacay marka tan wuxuu Saadiq John markaas wuxuu haystay gobolka Banaadir waay ay soo wacay talisan yala بس على التليفون كي أكوسي يا سويت حاجة عيدن كاس مركي ميل لوتراي ما يا أباندوله وعيان حوك دك الصومالي أنا كدوسيجا راشين كودا المشاركة وضع بحنا فيري راشين كي المشاركة لكن وحي هو الجلينا وحال بحش وحا سمايا أباندوله حوك عنودها أنا تو إنفورم والنسوق يسيا بس يعني سألوا قالوا dadkii meesha jiraan waxay u baahan yihiin anaga siina mugtay shidaal ha ahaato raashin ha ahaato waxa soo dhan laakiin awaamirtooda markaas aan Banduula ma sheegtay maya okay telefonkaaga dami ya hadii Banduula amar ku soo siin shaqad ku leedahay malaha baabuurtan xirada iyo khamiis maayno baabuurta xirada ku xareey ya ka shaqeysii saan balaay inoo imaanba habeen dhowr jeer habeen waxay soo marka wuxuu exactly ku sheegay asaga wuxuu leeyahay wuxuu ku sheegay maxay ahayd marka laga yimaado in amar la soo siiyay nooca amarka la siiyay muxuu ahaa ma amar lama siin asaga laakiin wuxuu ka shakisan ayaamaha dhaqdhaqaaqa mogtahay ninkan anaka waxa habeen kasta la soo wacaa habeen dhaaf madaxtooyada nin la yiraahdo muxuu ahaa Kampala oo raid ah ya oo markii damar kabtan waa liijir ma aqaan meel kabtan ka qaatay ya ayaan soo wacay iyo kuwa kale waxay leeyihiin ciidan 120 habeen 5 saac 7 saac habeenimo 7 saac 5 saac habeen ciidanka inta u wadaan ani waa shaqin jiray sababtoo hadii la baxo madaxtooyada lagu weeraro ama meel kale lagu weeraro mugtahay ya 100 ciidana waa la qaada afga dhulka salgeena waxay soo qabtaan ma lahan ya habeen kasto waxaan nidaam aan sameeyso ciidanka marka soo darbanaysaan waa ciidanka raashin u baahan yahay hadaad wadaan oo تومبر أودان راشين الآن كل عم حسن منسى شدال قرشيها لو ما كان مايا واي نكي سركالك مركو waxaa ku tiri baabuurta ooliyada ka daadi meel ku xaray telefoonka dami hawshaas wax shaqo ku bari adiga qof kala hadleen hadii lagu soo hadla Banduulaha la hadlo Banduula xoog dalka Soomaaliyeed in marka ciidankii siyaasad loo isticmaalo siyaasada loo isticmaalay waay marka waxaad maqashay la weerar Cabdiraxmaan Cabdishakuur markii dambe isla habeenkii ay soo waay ilaahayna badbaadiyo oo taliya maanta inoo shaki ugu jiray guri Cabdiraxmaan Cabdishakuur weerar ku socda hadii aan telefoon qaban lahaa weerarkan waa ku jiri lahayn sababtoo oo 10 jeer u soo wacay waay ciidamada marka waxa ahayn ciidamada Imaaraadka tababartay waay laakiin waxay ka ahaayeen muxuu ahaa kala dirkan ku sheegaa sababta loo kala diray marka waxa weeyeen amar qaadan waayeen maya hor meeshan Soomaalidu waxay is ogeynaa jiro waay farmaajo meeshan aan joogno Nairobi hotelkan Grand Regency ayuu heshiis kula galay dawladda Qatar waxay ahayd in la taakuleeyo lacag la siiyo doorashada laakiin bishart maanta madaxweyne noqdo inuu ka saaro Imaaraadka wadanka ciidanka marka dugsiga waa dhisnaa inuu ka saaro heshiiska inta lagu galay farmaajo markuu yimid
haddaad xasuustay adi media ka shaqaysaa habeenkii xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha loo magacaabay subaxdii ma xasuustaa farmaajo inuu aaday sacuudiya media maxay qortay wuxuu u socdaa sacuudi inuu imaaraad ku dacway soo maaha maba is arkine ya muxuu ku dacweynaa ya imaaraadka maba la kulminba maba la kulmin dadku arkeenba waa madaxweynaha loo magacaabo wuxuu ku mashquulsanaa ra-iisul wasaare magacaawadeeda ya suuq meediyaadna waa tii ka hadlayan inuu dacwo u socdo soomaa markii oo soo laabtayna cadaadis magaalada airbortka dhibaan ku qabnaa cadaadisaan noogu bilaabay furdid alaabta noogu soo duun cadaadisaan noogu bilaabay muxuu ahaa safaaradda iyo dugsiga marka waxa u dhexay dananaya gash saas oo kale madaxtooyada ciidankeena joogeen oo isbitaalka VIP-da oo xamar ku yaala oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada xildhibaanada loogu talgalay haddii wax ku dhacaan waa tii madaafiic soo dhici jirta mogtay madaxtooyada hadday wax noqdaan isbitaalka ugu horreeya oo keena frinjiteer uu ahaa imaaraadkaas kale free reeraha meesha degan askar xildhibaan kulli free lagu daaweyn jiray takhaatiir joogtay ma fahmaysaa ma maqashay imaarada siyaasad dawlad ku dhex jirto oo iyagoo degan madaxtooyada wixii marka imaaraadku qaban jiray qadar ma qabatay intee ka qabatay aawe hal dirac fiiri ciidanka waxa uu ciidan noqonaa xero hadduu leeyahay ciidan xero lahayn sidee wax ku noqonaa waxaan ku sheegay farmaajo maqli jirtay madaxtooyadu waa ka guuriyey oo wasaaradda gaashaandhigga u guuriyey adduunka haddii fulay hooyo dhashay ninkaan aan hooyadiis dhashay madaxtooyadu wuxuu imaanaa mataqaanaa dadka ustusina wuxuu leeyahay dagaalan aadaa ciidankii mabay sida ciidan xero leh ma joogtide anaa la ii yeeraa waxaa leeyahay nuuro ciidankeen aniga after how many hours aan ku keenay sababto ciidan wax ugu jira xero ya kun iyo wax la jira ay ugu joogto 200 keen meeqa sacan ku keenaa haye meeqa bariye rabtaan maxaa ugu talgalay raashin maxaan siinaa waxayga waa diyaar kuwa kale waxay leeyahay aniga wallahi ciidankii waxaan u baahanahay 15 bari 18 bari oo ciidankii lagu soo aruuriyay ciidan oo naagahooda la jira qoriyaashooda la wato waay ciidan miyaa waxa soo kala ah warwar been yaa sheegin ciidan hadduusan xiro lahayn ciidan ma ahan gaashaandhigga marka muxuu ka dooni jiray wasaaradda markuu yimaado wuxuu imaanaa maars dhammaadkeeda xilliga bisha abriil roobka bilaabanayaan inta ciidan la raadinayaba roobaaba yimid wuxuu dadku ugu sheekeen wallahi dagaalan qaadanayaan roobaa yimid waa roobka imaanaya waa lagu soo kala tagaa ma ciidan tallaabo la qaadin haddana waa la joogaa roobka muxuu dhimaa in dagaal la qaado maya inta dhoobee lagu dagaalamo meesha labada gobol ugu dhow xamar lagu dagaalamo waa gobolka shabeelaha dhexe iyo shabeelaha hoose baabuurtii ma socon karto ciidankii ma socon karo haddana wuxuu sugaa ilaa iyo dhammaadka October November markay soo dhowdahay oo dabeesh isbedesho roobka imaanayo sideeda waay ma fahamtay marka waxa way dadkan wuxuu u sheekeynaa dagaal aan u socdaa waaye gabagabo markaa waa soo gabagabaynaynaa khibradaada saraakiishii ciidanka Soomaalida ciidan ahaan u shaqeyn jiray siyaasadda ka madax bannaana maamuladii dalka soo maray markaa fiiriso qiimeyntaada maamuladii hore miyay wax dhismayeen mise farmaajo xilligiisa ciidan dhismayeen horta waxaan ciidanka ninka oo Sheekh Shariif waqtigiisii hal arrin yani uu ku guuleystay Sheekh Shariif wuxuu ahaa waxa ka go'need inuu shabaab la dagaalamo ninka ugu horeeyo oo cazuuma saraakiisha ugu sareysa xoogga dalka Soomaaliyeed Mareykan Canada Yurub inta joogtay oo shir uu qabtay muxuu ahaa Washington oo saraakiil timid saraakiisha ugu qalsaneed timid ilaa hadda qaar ay jooga Maxamed Saalax Generaal Maxamed Saalax Generaal Muuse Xasan Generaal Maxamed Macallin محمد الله يرحم محمد ساق بيحي سنكيشي هرقنا أيو كيني خورشا عيني إلهي هدرتان قرورتي لما يقوى إنين دعي يا مجرتون شيخ شريف راشين كود ميل صاري ميلو دجي حشمو دي قبين حسن شيخ ميلي دقناين كان كلا ويفعناين واسعودين نين كان إلهي ياتين حتى مدينو ياتين وحا أركيسا متقانا يعني لما تشتو هذا تليا حوقا nin dhalinyaro waa aad aan u jeclahay aniga nin oo discipline laan ka arkaa laakiin waxa in wax la baro ya ninkan in wax la baro waay prestige waay ciidanka dawladaha markay wax kula qabsanayaan ciidanka taliyaha la qiimeynaa khibradiisa inta qarshe oo la ogahay artillerista ayaa wax la xirka waxa ku rajwiil oo dhali karo oo awood u yahay waxyaabaha qaarkooda ya ma fahmaysaa maxay ujeedadu ahayd markaa in saraakiishii ciidanka laga wada dhigo niman dhalinyaro ah oo farmaajo daacad u ah Ethiopia alaga baqa saraakiishan hadii soo celiyo waxa la saraakiish xoog say u soo celiseen luga dhulka loogu dhufanaan dawladda ma fahamtay midaan ku sheega ma xasuusta mar oo liije masaarada hub noo keenis wadanka ku soo galeys idaacadaha la bambuunin jiray ya oo hadda farmaajo oo wasiirkan kaashaandhiga dama kii ka horeeyay
masar waxay dhisatay saldhigga ugu weyn oo ciidamada badda africa iyo middle east waxaa lagu casuumay wasiirada gaashaandhigga carabta oo dhan wasiirkeen gaashaandhigga hubow dalbaday oo soomaaliya lagu difaaco siisi amaruu baxshayba min zamaan waqti xasan sheekh uu leeyahay soomaaliya hadday yimaadaan dambiishooda waxay u ha qaataan istoorada ha u furnaadaan oo ciidamada ha isku difaacaan waddankooda argaxisadana ha iskaaga celiyaan sheekadii aan kugu dheeraynin wasiirkiyaa dalbay wasiirkii hubkii oo la diyaargaray 3 beri ka hubka wallahi aan arkay yani hub Soomaali soo gaarin ma aha casri ah end user certificate oo loo qoro Somali monitoring group loo qoraa in loo sheego hubkan ciidamada Soomaaliya inay leeyihiin aan la iibinaynin qolo kale aan la siinayn xoog uu leeyahay Soomaal warqadii la soo xid media wasaaradda gaashaandhigga marka dad Itoobiya shaqeeya ku jira wasaaradda gaashaandhigga fashilisay warqadaas lagu heli karaa ya end user certificate marka Soomaalida waxa soo baxay dhalinyaro cadow ah qaa'imiin ah cadow ku ah dhismaha waddankooda oo YouTube-ka iyo Facebook-ka ummadii been ka sheegayso waxa waa fiiri ayaan midaan ku sheegay Soomaali waxa soo habaaray 5,000 sano dad dhintay dhalinyartoodii oo dagaalkii 77kii ku dhamaadeen maanta taariikhdooda meel lagu sheega malaha lama qoro taaladoo yara loo quuri way Soomaali maanta information inuu baxay ay amxaaradii dagaalka isku dhimatay ubax usoo tilaalay amxaaradii ku dhimatay ayuu soo tilaalay weynana ya waxa la dhigi jiray guuto waxa jirta xamar dhigi 77 loogu magac daray dagaalka 77 waa la bedelay magacii waxa loo baxshay guutada 12 abriil 12 abriil maalin leedahay la xuso laakiin 77 si taariikhdaas loo baabi'iyo ya ayaa loo tirtiray u fahamtay waxa way meeshan mid ku sheegay ciidanka waxa lagu dhisi karaa in la helo madaxweyne Soomaali ah si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baahan noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid